qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Garowe ee xarunta dawladda Puntland ee Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay ugana hadlay hogaamiyaha cusub ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo maalintii shalay baarlamaanka Soomaaliya ku doorteen gudaha magaalada Muqdisho xilli aan mikrofoonka warbaahinta dunida oo leh kula dhex qaadnay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Garowe ayaa waxa noo suurta gashay inaan soo aruurino aragtidooda ku aadan dareenka ay ka qabaan doorashada ka dhacda shalay magaalada Muqdisho iyo waliba waxyaalaha laga filan karo madaxda Soomaaliya haddii loo doorto dalka Soomaaliya inay ka qabtaan waxaana sidoo kale wareysiyo kooban la yeelanay qaar ka mid ah wasiirada Puntland oo ka weydiinay bal inay cabiraan dareenkooda ku aadan gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka iyo waliba marxaladda imika ku sugay dalka Soomaaliya sidii looga samata bixi lahaa wasiirka cadaaladda iyo wasiirka xanaanada xoolaha ayaa ku hormarnay oo aan weydiinay bal inay ka waramaan dareenkooda waa kana wasiirka cadaaladda Sheekh Xasan Khaliif Ajaayo oo ka waramaya doorashadii maalintii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho raggeeda aan ka cabiro aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in yaani markii ugu horeysay 22 sano yaani dalka gudihiisa lagu qabto doorasho lagu qabto oo si waliba mataqaana feer u dhacdo oo doorasho qarsoon ah marka waan ku faraxsanahay ninka soo galayna waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu hawsha u fududeeyo mas'uuliyadaasuna waxa weeye waa mas'uuliyad weyn oo uu sida ay u tahay uu u fuliyo tiimka kale oo iyagana mataqaana tartanka gali doono oo soo baxayana haday madaxweyne tahay iyo haday prime minister iyo haday wasiir tahay iyo qof kasto xil Soomaaliya u qabtaba dalka Soomaaliyeed wuu burburay dhibaato nin kasto xume is yiraahdo Soomaaliya xaaladda la geeyay xaalad ka hooseysa ma uu geyn karo marka waxa loo baahan yahay in la soo kabo oo jiilka yaani soo baxaya la soo kabo sida aad ogtihiin shacabka Soomaaliyeed 20 sano oo burbursanaa yaani hadii waxa weeye qoysaska isku baagafoondeeyay marka dhalinyarada boqolkiiba 74 waa dad 25 ama 30 ka yar hada generation-ka noocaas waxa la rabaa in mustaqbal loo sameeyo oo meel ay joogaan bal isku soo aruriyo shacabka Soomaaliyeedna waa shacab ka duwan bini aadanka oo dhan luqadiisa gooniya muuqaalkiisa gooniya aragtidiisa gooniya deegaanka iyo cimiladiisa gooniya shacabkaas xusuusan adduunka uga baabiin qof kasta mas'uuliyad baa ka saaran in la ilaaliyo midnimadooda iyo walaalnimadooda iyo is ururintooda oo mar kasta shayga laga istaago shaygan Ilaahay muxuu ka qabaa nationku muxuu ka qabaa doorashadii shalayto ka dhacaysay doorashadii shalayto qaabkii baarlamaanku ay u codeynayeen marka aad fiiriso iyo sidii ay u socotay gabi ahaan iyo doorashooyinka ka horeeyay ama baarlamaanada hore ee ku meel gaadhada Soomaaliya waxyaabo looga bartay saqab-qabsi iyo isriixriixi iyo tishla sidii u dhacaysay maxaa soo ran kartaa bay soo kordhinaysaa ama ay u muuqanaysay horta baarlamaanadii ugu dambeeyay way ka qurxoonayd oo runtii way ka qurxoonayd aad iyo aad bay uga qurxoonayd marka oo way fiicnayd laakiin iyada lafteeda waxa loo baahan yahay qofku marka uu mas'uulka yahay emotionkiisa in uu qarsado oo uusan aad mataqaana u muujin waxa uu sameeyo sir weeye waxa codka sirka looga dhigay waxa weeye cid aad u vote gareynayso iyo cid aad mataqaana taageeraan la garan laakiin بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما سنتين ديان عبرو رأيي دور الشدة كدعدي مقالة مقدشو عاصمة الصومالية ولو دورتي شرقدون كبرلمان كا شلا إلا حالي وقت دمسعتي وحنا من سنة هاي wixii noqon doonto horta Ilaah baa yaqaan wixii qayb oo iman doona inagu kama warrami karo laakiin qofku wuxuu aaminsan yahay inay tahay waxaan aaminsanahay guul u soo weeytay Soomaaliya sababtoo ah marka hore dawlad federaal ah oo aan ku meel gaar ahayn oo dawlad rasmi ah oo Soomaaliya ah yaa maanta midabada loo taagay oo baarlamaankeedii la xulay shirgudoonkeedina doortay sababtaas waxa marka xaqiiqoobay in maanta Soomaaliya dawlad leedahay waxa kaliya harsanay uu yahay in doorashadii labaad oo madaxweynaha iyo xuladii prime ministerka iyo golihiisa wasiirada haddaan ku daro dadka loo doortayna waxaan aaminsanahay dad hawsha karti oo ka bixi kara inay yihiin Soomaaliya inay waji cusub gashay oo hadda bal loo beeray dhinaca dadka awal
wax badan waxay ku salaysnaayeen awoodihii ka jiray waddanka. waxaan taageeray ninkay dhaayeen professor isha magaciisi wuxuu ahaa jawahiri baan shari taageeray inkastoo codadkiisa farada badan aan markii loo reeqan anna muddo dhinac ka raacay marka waa ka sax ku taageeray jawahiri waxaan ku taageeray kulli sida dadka aqoonta badan oo kulli ay ka faaleen lagana sheekeynay in la dhaayay ninka in badan buu dalka soo qabtay wax badan buu soo shaqeeyay laati Soomaaliya la sheegay waxa uu maqas marka jawahiri uu leedahay qabo marka fikirkayga hadaan ka hadlo ugu horeyn horta waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xildhibaanada iyo guddiga ka soo shaqeeyay iyo gudoomiyihii Muuse oo xataa ku siisamaha baan aad iyo aad ugu mahad celinayaa sida quruxda badan oo jawahiri u doorteen jawahiri waxaan u arkaa xataa nin oo rugcadaaya aqoon-yahana in badan ka soo shaqeynaya dawladda Soomaaliya xataa way aragnimo leh wadaniya baan u arkaa teeda kale waxaan oo kale oo u mahad celinayaa xataa xildhibaanada Maryama Nuur Maxamed hay doorashadii shalayto gudoomiyaha baarlamaanka lagu dooranayay magaalada Muqdisho sidee bay kula muuqatay la socotay waxa la socday waxay ila muuqatay raadiyahan ka dhageysanayay boqolkiiba boqol bay ila muuqatay boqolkiiba boqol ilaahayna waxaanu ka baryaynaa madaxda dambeena in ilaahay noo dhisaa oo midkii dalka iyo dadka wuxuu u yaal iyo diinta ilaahay inuu noo dhiso noo saaro Soomaaliyana ilaahay inuu nabadeedii iyo walaadnimadeedii iyo is-ogolaanteedii ilaahay inuu ku soo celiyaa iyo midnimadeedii waan u soo halgamay ilaa leego loo soo halgamay ilaa 60 calankii loo soo halgamay oo dhexda xidigta ku leh kor allaha u dhig ilaahay idinkiisa allaha mideeyo diintana mid allaha ka dhig diintu laba maayo waa mid waa diinta qur'aanka mid allaha ka dhig ilaahay idinkiisa diinta inta mucaaradka ku ah oo wax dilaysa waa afduubayaasha oo shaydaanka oo madaxda laynaysa oo laynaysa wax yaqaanka oo laynaysa muxuu ahaayay islaamka ilaahay waxaanu ka baranay ilaahay inuu ka dhex saaro dhinaca kale waxaa magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ka socday hididilo wanaagsan oo lagu jiro sidii loo soo dooran lahaa madaxweyne dalka Soomaaliya oo hana qaada siyaasadda kala duwan ee dalka ka jirta hawsha ka socota magaalada Muqdisho ayaa dadka qaarkood waxay ku tilmaameen taariikh lama ilaamaan maadaama dalka Soomaaliya lagu doortay baarlamaan iyo dastuur loo wada dhan yahay waxaana lagu wadaa maalmaha soo socon dalka Soomaaliya oo yeesho dawlad loo wada dhan yahay oo laga baxo waqtiga ku meel gaarka علي عبد العزيز علي فانتاستيك warbaahinta dunida online xafiiska magaalada Garowe